بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta iyo xadiiqo aad iyo aad u weyn oo la yiraahdo Burgess Park waddankan Ingiriiska waxaa ka buuxo xadiiqooyin fara badan oo aad iyo aad u fara badan oo si aad ah loogu beeray dhir kala duwan oo noocyo fara badan leh dhirtaas faraha badan waxaa loogu talagalay in lagu celiyo waddanka biodiversity oo macnaheedu ay tahay in xayawaanaad fara badan iyo cayayaan fara badan meeshaan laga helo si ay ugu noolaadaan oo ma aragtay dhulka u noqdo dheelitiran hadeer geedahan oo kale pine la dhahaa waa geeda aad iyo aad u dheeraanayo xadiiqadan waxa way xadiiqooyinka ugu weyn ee ku yaalo magaalada London khaasatan dhinaceeda koonfurta South East ama koonfur bari waxaa ka helaysaa waxyaabo fara badan oo dhir ah waxaa kaloo loogu talagalay in ay ku noolaato shinnida dadka waxaa loogu talagalay inay ku ordaan jimicsi ku sameeyaan kusoo lagu baxsadaan marka waxa way maanta iyo jimicsi iyo socod aan u soo baxay in aan ku soo jimicsado xadiiqadan ama baagan aadka u weyn waxaan rabi lahaa in waddankeena sidaan oo kale loo sameeyo xadiiqooyin gaardino baagyaal aad u waaweyn oo dadka ay ku soconi karaan si loo ilaaliyo dhirta waddankeena ee nabad guurka tusaale ahaan hadeer geedkan waa yar yahay waa geed yar waxaa loo sameeyey bahashaas oo la dhahayo tree gato oo ma aragtay lagu waraabinayo waraabisaa loogu talagalay in loogu sameeyo si ay biyaha ugu qalalin oo jiridka u helo biyo fiican geedahan waa cusub yihiin geedaha markay weynaadaan oo cimri gaaraan waa la bedelaa mar walba geeda cusub baa lagu bedelaa hadeer geedaha lagu bedelay magacyadooda intay ku qoran yihiin hadeer geedkan magaciisa waxaa la dhahaa Prunus avium plena bearroot waa geed weynaani doona hadeer ma laha weli caleen laakiin caleen uu soo bixini doonaa waxaa kaloo loo sameeyey war aad u weyn wartaas oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo nolosha xayawaanka ku nool biyaha oo waxaad arkaysaa dadka qaarkood in ayba meeshaan ay malay ka dabanayaanba oo waxyaabaha lala yaabo sababtoo ah waxaa lagu beeray malay waxaad arkaysaa boolo iyo shimbirtaas aan magaceeda garanaynin shimbirtaas magaceeda ma garanayo waa shimbir aad u weyn boolooyinka waa kuwana iska dhageysta meeshaan yacni waa deganaansho meel aad ku dareemaysid deganaansho shimbirtaas goose la yiraahdaa af Ingiriiska qofkii af Soomaali ku kasaayo magaceeda ha ii soo sheego wadamadeena lagama helo shimbirtaas af Ingiriiska waxaa lagu yiraahdaa goose waxaa loogu talagalay marka meeshan in malay lagu beero
si ay shimbirtaas malaay ugu cunto geedaha ku nool biyahana lagu beero dadkan ay u soo tagaan dalxiis iyo damaashaad ahaan hadda waxaad u jeedaa ninkaasoo malaay ka dabanayo malaay inuu daftar rabaa sababta malaay baa loogu beeray meesha intuu aadi lahaa badda ama webiga wartaanu iska imaani markuu warta imaado malaay wuu ka dabanaa malaay wuu ka dabanaa marka meeshan maanta hawada aad iyo aad u fiican tahay waxaan rabaa inaan idin daawadsiiyo magaalada London sida ay u horumartay oo meel walba loogu sameeyay xadiiqo ama gaardino lagu nasto oo dadka ay ku nastaan waa kana dad kale oo haddana malaay meesha ku samaysanaya tendooyin bay xataa ka samaysteen dadka qaarkood tendooyina meesha ku taalo si malaay loogu dafto قالتني فوت مع الصغار ياك مع التيتا سنين nin carawa meesha joogay waa maqlayseen hadalkiisa ila tahay waxaa loo sameeyey mashqulo beerta daarisalaam iyo beertaan bal ka warama ma islaha ila tahay beertaana ka weyn 100% kana dhir badan sababtoo ah beerta daarisalaam waxaa lagu beeray geedo go'an bas laakiin meeshaan waa la yaabaysaan inta dhir nooc adduunka shantiisa qaaradood laga kala keenaa lagu beeray annakana geedo oo ma aragtay dhif ah oo ma aragtay hadday ugu badnaadaan 10 xabo ka badnayn aa lagu beeray marka beerta daarisalaam waxay u eg tahayba fake walow ay aad u qurux badan tahay markaad fiirisid markii loo barbar dhigo meeshan oo lagu beeray excuse me sir what type of fish you are here hunting yeah carp is it edible or just for fun no put back woodback all right okay catch and release all right thank you sir ninkaana weydiiyey malaayga uu meesha ka dabanayo magaciisa magac la yiraahdo wuxuu igu yiraahdaa malaayga la dhahay carp marka waxaan dhahay malaay aad cunaysid miyaan mayuu dhahay waa malaay maxaa la dhahay hobby ahaan aan u sameynayo markaan dabtana meeshiisaan ku celinayaa yacni waa dad dharagtii ka badatay markii dharagtii ka badatay meeshaan intay soo baxaan malaay dabasho u soo baxaayo oo malaay dabanaya oo meel walba teendho iyo ma aragtay shabaqyo iyo wax ka samaysanaya saa u jeedaan marka waxaan rabaa inaan idinla qaybsado meeshaan sida loo qurux badiyey buundaa loo sameeyey xataa saa u jeedaan buundada baladweyne ay ka weyn tahay ila tahay buundadan dhararkeeda ka dharar badan tahay annakana ilaa haddeer buundooyinkii ma aragtay qarniyo la dhisay aan weli isticmaalnaa meeshii la rabay in buundooyin fara badan webiga shabeelle iyo jubbo laga dhiso iyo meelaha tokaga oo biyaha daadka ka imaanayo sidaa u jeedaan halkaas waa garoonkii kubadaha lagu ciyaarayay ninkaas baarashuudu ku tababaranaya oraduhu rabaa inuu ka qayb galo sababta baarashuudka gadaal uu celinaya markuu gadaal u celiyo culays badan uu dareemaa ka bacdi markii baarashuudka laga dhaafo orodkiisa waa jabbaarmanaya oo aad buu u dheeraanaya
meeshaan waa meelaha iska sambalka ah hadda. meeshaan waxaa loogu talagalay waqtiyada qaarkood in fasax ahaan loo tago. waagii hore meeshaan waxaa lagu samaysani jiray grill ama barbecue, laakiin ayaamahan dambe way diideen iyadoo laga baqayo coosaska markay qaleel noqdaan in ay meesha ka kacdo maxaa la dhahayay dabkaas dartiisaa marka loo joojiyey. oo haddeer grilling waa la sameeyaa, laakiin qaybtan ma lagu sameeyo. waxaa loogu talagalay grillka in aa inta ku samaysatid meeshaanaa galaysaa. markaa meeshaas gashid hilibkaadaa soo qaadanaysaa, waa dubanaysaa. waa kana haddeer meesha loogu talagalay grillka. dhulka waxaa laga dhigay jaay. intana qofkii raba grillkiisa cuntadiisa ku samaysanayaa, meelahaasuu fadhiisanayaa ka bacdi, ama cooskaas cagaarkaasuu iska fadhiisanayaa. meeshaan markaas lagama baqaayo in ay ka dilaacdo dab. haddaanu nahay muslimiin, grillkan ma aragtay waan iska ilaalinaa, sababtoo ah waxaa lagu karsadaa cuntooyin aan cunin. geedkii shimbirtii tukahana waa kaas oo meesha joogto. haddeerna buurtaana ma aragtay hadduu alla inoo garto aynu fuulaynaa. waxyaabaha la isku dhaafay waxaa waye geedahaasaa la isku dhaafay oo soomaalida xoogga saaran. waa geeda gaagaaban oo yaryariis ah. daadaha haddeer muqdisho waxaa ka da'ay roob faro badan, ama roobaa ka da'ay. markuu roobka ka da'ay meelo fara badan, haddeer buurtaana koraya meelo fara badan maxaa la dhahayay carradii iyo wixiiba gooyeenbu. haddeer meeshaan roob walba ka da'o carradan ma go'ayso, sababta waxaa la saaray cooskaas oo celinayo, allahu almustacaan, biyaha inay go'aan. marka waa la yaabsanahay reer muqdisho waxa u diiday in ay jidadka samaystaan. roob walboo da'o ilaahay u naxariistee buuluxoowey carruur yariisaa ku dhimatay bilihii lasoo dhaafay haddeer. marka wax yariis le loo baahan yahay oo degmada dowladda hoose ee muqdisho in ay ku dadaasho si eygama laga baqaayo meeshaan. haddaa ka baqdayd wuu ku soo ceersana. meeshaas tukayaashii waaye. arag waaw, wuu ceersaday ma jeedaan? wuu ceersaday. waa u jeedeen? ninkaana ku diray si aan u duubo. markuu arkina wax duubaayo eyguu ku dalba shimbiraha inay ceersadaan. haddeer qimadii buurtaan jooga. kaas eygaas shimbirahan uu ceersanayaa. qimadii buurtaan jooga haddeer dalcaddii ugu sarreysay. halkaas waa buurtii waaye. si ay biyaha u gooynin dhulkan waxaa lagu abuuray cooskaas ground coveral ahaa plants. annaka soomaalida ground cover plants maba garanaynaba. haddaan garani lahayn xataa markay soo baxaanba waxaa soo baxo isla markiiba ari oo cuno coosaskii iyo dhirtii.
waa kaas marka meeshan quruxda badan sarta ugu dheer Londonna waa taas oo dowladda Qatar iyo TV-ga Jazeera ay degan yihiin waa maanta waxa waaye intaa ku dalxiisaysaan dalxiis maanta intaa ku qaadateen marka beertan aad u weyn tahay beer aad u weyn waaye ما شاء الله تبارك الله beerta Daar es Salaam shanjibaarkeeda la eg tahay waa beer aad u weyn ما شاء الله تبارك الله way fara badan tahay qaybo fara badan ay leedahay qayb jimicsi qayb sports qayb tennis yaaba xisaabin karaba waa iskaga soconaysaa leh dad Filibiin ah soo socda hadda oo qeylqeylinaya qaybaa ku jirtay oo meelahaas oo dhir aad u fiican laga helayay oo garden yariis oo qurux badan ah marka beertu waa weyn tahay jihadii hadar iga maqan meesha ku beegneed meelahaas ku beegneed ila tahay way sii socotaa hatta geedahan gadaashooda ma aragtay dhir kala ku taal marka aan fiiriyo cajaladaha Soomaaliya laga soo duubo geedahan iska fiiriyo geedaheena Soomaaliya aad u gagaaban yihiin ma ogi sababta gagaabiyay hadar geedkan 40 mitir camal waa gaaraya dhererkiisa marka Soomaaliya waa laga helaa geedo oo aad u dheeraanayo oo har sameynayo waxa u diiday in lagu beero sababtoo geedahaas waxay soo jiidanayaan roobka waa ma aragtay dhulka cidinayaan nabad guurkay ka hortagayaan qofkii beerana ajar uu Ilaahay ka siinaya marka kasarahaas dheer halfkooda waa meeqa dabaq waa 1 2 3 4 5 6 dabaq geed 6 dabaq la eg waa 6 dabaq dhererkiisa 6 dabaq 40 mitir camal lagu qiyaasay hadda kan oo kale 40 mitir uu leeyahay dhererkiisa hadii la xisaabiyo meeshaan waxa loo xiray waxa way sabab loo xiray maintenance dib u habeena lagu sameeynayaa waa la qurxinayaa markii laga furo la arki doona meeshaan waxa ka soo socda mashruuc ay ka soo wadaan halkaas waxa ku yaalo baaskiilo oo free ah iska koraysid marka degmada hoose Muqdisho qaasatan inay xoog saarto way arimahan oo kale si dadka Muqdisho degan ee u helaan meel ay ku fasax baxaan oo fasaxi meesha iska qaataan ayadoo lacag laga qaadanaynin hadar meelaha badankooda waxaa laga sameeyaa ganacsi ahaan marka ganacsiga waa iska fiican yahay laakiin dadka waa kala duwan yihiin kuwa waxay rabaan inay iska baxaan oo meelaha baraariga iska aadaan oo banaanada meel oo ma aragtay dawladda hoose ay leedahay oo dan guud ah in lagu dadaalo meelahaas fiican
oona lagu sameeyaa dhirtaan harka ah waaweynaanayo 40 mitir iyo waxa ka weyn ah oona hal nooc aysan ahayn noocyo fara badan oo kala gedisan qaybo sida geedaha waddankeena ka baxo kale nooc walba qurac qansax sarmaan galool damas maxaa la dhahaye lagu beeraa allahul musta'aan geedaha yaryariiska oo idil oo ma aragtay waddanka ka baxo oona miraha cuntana laga helo sida mirmira gob iska soconaysaa haddii Soomaaliya saas camal la sameeyo uu soo baxaa qofka waqtiga seasonka gobkaas uu iska qaadanaa qofkii ku beerayna ajar uu ka helaa qofkii kalena cunto ka helaa maxaa la dhahayay yiciboo kale in lagu beero quula yani geeda dadka ay cunaan uneexo waa fara badan yihiin geedaha waddankeenana ma aragtay ka muhiimsan bo geedaha haddii xoogga la saaro oo miraha laga helo dhiin waa ilooba geedka dhiinta ah si loo qurxiyo Soomaaliya waxay garanayaan basla in qumbo lagu beero laakiin waxaa jiro 100 nooc oo ma aragtay sidaas oo kale u baxo waxaa ka mid ah baar waxaa ka mid ah midka baladweyne iyo meelahaas ku badan qoone timir yani la kala duwa oo ma aragtay shakliga la kala bedelaa oo aan lagu ekeenin hal meel oo bas la inaan lagu ekeenin waa buundo waa hadar meeshaan hoos marayna marka tanawuca ma aragtay bi'ada in lagu dadaalaa hadar meeshaan waxaa lagu dadaalay inta aan soo maraynay meel walba oo meesha kale way ka duwan tahay geedaha ka baxayo hadarkan oo kale bamboo way mujida kalaradii xataa waa la kala bedelay geedahana ka baxay kuwan fiyooraha marka dadkan waa dadaaleen dadka aan dadaalin waxa way dadkan way oo weli aan fahansaneen in bi'ada la ilaaliyo sababta meel walba xoolo iska daaqaya xoolo cawaskii soo baxabo ri'a u joogto eber ilaa uu dhulkii noqday bacaad saxaro camal isku bedel rabo marka qaarkiis adraakas geedayaal fiyoora haddana aan soo galnay fiyooraha ka baxayo waad u jeedaana ila tahay kana geed kale fiyoora geedkan waxaa la dhahaa horsenada umaleyna horse chestnut al dhahaa wakaas geedahana waa lagu beeraa der ayaamahan waxay bilaabeen wax la dhahayo fruit on the road in oo lagu beero jidadka geedo fruit ah darkan oo kale magaciisa haduu ku yaalo waa fiirinaynaa wuxuu u egyahay un maaragtay geedo fruit ah oo fruit ka bixi doonaan si dadka meesha iska socdo ay u cunaan waatana qaybta gardenka fiyoorayaasha ayadana
waxaa lagu beeray dhir kala duwan. meeshan waxaa waaye waxaa loogu talagalay in lagu beero ayay su-aal waaye beerta daarusalaam ma laga helaa waxaan oo kale mase coos basaa lagu beeray? waxaanoo dhan waxaa loogu talagalay shinnida inay ma aragtay ee meeshaan ka daaqdo. waa qaybtii shinnida ay ka daaqi lahayd. waa noocyo kala duwan meeshaan lagu sameeyey. haddar waqtiyadooda weli ma la gaarin, waa yaryar yihiin, laakiin markii waqtigooda la gaaro meeshaan waxay isku beddelaysaa jannatullaahi fil ard. meel oo ma aragtay wada doog ubax fiyooro ka baxaayo oo haddana caraf leh, caraf kala duwan, kuwa caleen u carfaayo, kuwa barfuun u carfaayo, kuwa indhaha u roon. marka waxay noqonaysaa meeshaan meel aad iyo aad u qurux badan markay soo baxaan geedaha. weli haddar waqtigooda waa dhiman yihiin, bilaha soo socday haddar bilaabani doonaan. qaarna jaawaaba waqtigoodaa dhammaadayba. ayay meeshaan waxaa wiifo waa la keenay. haye wiifogii soomaaliya yaalla iyo kan ka warrama fanfare inaan carruurta u soo wado waayo meeshaan hadduu alla ii idmo. sababtoo ciidan waxaa lagu ciidaya basle guriga. ciidan guriga lagu ciidaya. marka meeshaan walow aan ma aragtay weli cudurkii iska jira waddanka, haddeerna la sheegaa kii indiya soo baxay. marka wiifowgan waxaa la dhahaa wiifow wareega waay. intuu tagaa wiiga soo socda wuxuu tagaa baag kale, sidaas u wareegaa, waa socdaa. marka ganacsigan soomaaliya waa ka maqan yahay. dadkii lacag isku darsani lahaa ganacsigaasoo kale samaysani lahaa baabuurtaasaa lasoo gadanayaa. marba meelaa la tagaa, marba degmo. laakiin degmo si uu u tago waxaa loo baahan yahay dhul aad u weyn. iska soco bas ma aha, dhul aad u ballaaranaa loo baahan yahay. waa kaas qaybtaas kalena yacni tanawuc bii'iyaa loo sameeyey, kala duwanaanshaha deegaanka si looga helo shimbiro kala duwan. mirihii waa kuwa saddeer. haddii miraha soomaaliya la geeyo aaday ugu bixi lahaayeenay ila tahay. shimbiro kala duwan maxaa la dhahay markuu roobka soo da'o allahu lmustacaan. meeshaan waxaa laga helaa mindhic dhuleed xataa waa laga helaa. waxaa ka maqan basle xoolihii waaweynaa. xoolihii waaweynaana waxay u baahan yihiin basle fikir in loo soo bandhigo. haddii fikirkaas loo soo bandhigo waa la keenaa meeshaan. anaaba isku dayayaba inaan u qoro maxaa la dhahay suggestion in la keeno maxaa la dhahayay maxaa la dhahayay weeshii iyo sagaaradii iyo waxyaabahaas oo u adkaysani karo qabowga waddankan. waana xoolo nabadoon oo ma aragtay dhib aan jeclayn xoolahaas. haddar geedkan oo kale aad u qurux badan yahay. waxa loogu waayay soomaaliya ilaa haddeer ma garanay. dadka beeraha soo bartay, horticultureka soo bartay
ku dadaala inaad waxaa kala bedeshaan. Waa kasoo geedo cusub oo hal nooc bas le aan lagu ekaanin oo lagu ekaado noocyo fara badan. haddeer waa ka baxay haddaan dhinacaan aado dhinacii guryaha iyo wixii aan aadaya, laakiin maadaama ay socod tahay dhinacaan aan ku laabanaa weli inaan ku dhex jiraan rabaa meesha oo aan ka bixin. geedkan oo kale haddaa fiirisid waa fiyorayaal aad u qurux badan. meeshan waxaa la dhahaa gaardiinka dekamka oo ma aragtay shade har waaye, meeshaas waa mugdi waaye. waxaa loogu talagalay inay ku noolaadaan xoolo ama bahallo gooni ah. geeda gooniya ka soo baxo, cayayaan gooniya ku nool. geedaha qaarkood xataa waa loo jijibiyey si ay ugu noolaadaan. waa biodiversity waaye marka meeshan. marka cajalkan waxaan usoo duubayaa wax kale ma aha, tanaawuc albii'i, in noocyo fara badan lagu beeraa dalka waa muhiim, oo noocyo gooni bas aysan ku beernaanin ay kala duwanaadaan. fiyorahaas haddeer ka horaan ka hadlay waxaa la dhahaa dandelion la dhahaa ama dandelion. finishka boy ku kee dhahaan. marka waa kaas, halkaas inaan ka baxaan rabaa. marka meeshaan carruurtaa loogu talagalay inay ku wiifoowaan, maraajixdooda ku taallo. wallaahi dadka degmada muqdisho xukumo ilaahay khayrka ha waafajiyo, waxaan dhahno ma jirtee. jidadkii ma samaynayaan, roobka markuu soo da'o jidadkii dhanaa hallaabayo. drainage meel ay biyaha ka baxaan loo samayni maayo. lacagta ka soo xarootana jeebkaa la gashan. fuudka yariiskaa marka shacbiga lagu celini, markii fuudkaas lagu celiyana waxaa la sameyni meediyaha loo yeeri, waxaa la leeyahay markaaseeto kaalay arka waddankii aan waxaan ka sameynaynaa wax aad iyo aad u weyn. xasbuna allah wa nicma alwakiil inaa dhahno leh waaye. waa qalad waaye waxaas oo kale. waa in lagu dadaalaa lacagta ka soo aruurta degmada in lagu celiyaa degmada. qashin aruuraha lacagihiisa meel loo dhigaa, booliiska lacagtiisa meel loo dhigaa, dadka shaqaalaha. haddeer duqa magaalada meequu qaataa bishii talo waa su-aale. haddii ninka askariga 200 uu qaadanayo, duqa magaalada meeqaa marka inuu qaato ay tahay. mushaarkiisaasoo la sheegayo ma maqlin. ama guddoomiyaha degmooyinka meeqay qaataan.
wixii oo dhan ay isku fuuqsanayaan. marka maanta cajalka intaasaan ku ekeynayaa. waa ka soo baxay gardenkii 35 daqiiqo aan ku soo maray min gees to gees anoo tartiib u socdo, laakiin waxaa loogu talagalay intaas ka badan 1 saac oo kale camal inay ahaad, sababtoo hal gees basaan ku socda, geeskii kale maan ku soconin. marka intaasaan kusoo ekaanaya cajalkan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.